shacbiga ku dhaqan magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa saaka arooryadii hore waxa ay mudaharaadyo waaweyn ka dhigeen wadooyinka halbowlaha u ah magaalada Berbera. mudaharaadkaasi oo lagaga soo horjeedo warshada leydhka ee Berbera oo xukuumaddu sheegtay in ay ku wareejisay shirkad bareefada oo magaceeda la yiraahdo Tayo Energy. dadkaasi oo iskugu jiray bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa saaka arooryadii hore kuwa bariistay warshada leydhka ee Berbera horteeda, kuwaasi oo lahaa ma doonayno in shirkad bareefada lagu wareejiyo warshadaasi leydhka. waxaana halkaasi ay ku gubeen taayiro tiro badan. inkastoo badhasaabka gobolka Saaxil uu halkaasi yimi ayaa waxa uu tahli waayay in uu dadkaasi la hadlo oo wax u sheego maadaama ay cadhaysnaayeen. waxaana halkaasi soo gaadhay ciidamo tiro badan oo rasaas ku kala direeriyay, waxaana ay dadkaasi taayiradaasi ku shideen xarunta dawladda hoose ee Berbera, xafiiska badhasaabka ee gobolka Saaxil hortiisa iyo warshada leydhka ee horteeda. intaba ay la wareegtay dawladda si ilaayo kaama ogolino oo anagu lama maqal adduun weynaha hadii riyaal haystay mid kala haystay wax sida dadkoodii iyo dalkooda loo galo ma ogolino. warshada sibirkaan maqalay ila la iibinayo tii kala ku xigta de markaan hal iibiyo dekadana sagaar baan leenahay hadaa dalka iyo dadka wax ka qabto hadaa waxba ka qabin waxba ma jiraan. geesta kalena markii uu mudaharaadkaasi soo idlaaday ayaa waxa xafiiska badhasaabka gobolka Saaxil kula hadlay warbaahinta gobolka Saaxil gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar iyo taliyaha qaybta Cabdi Cali Xayd. dad aad u daayira bay haayeen oo dad waaweyn kama qayb qaadan markii dambana mudaharaadku yara fiday taayiro waa la shiday laakiin se wax khasaare ah oo ma taqaanay hay'adaha ama soo gaari ma jiraan. kaliya dadku waxay u geysteen 3 askari dhaawac bay u geysteen. baaburka gudoomiyaha gobolkana muraadaha ka jabiyeen, baaburka taliyaha saldhigga wada jirna muraad bay ka jabiyeen, baabuur nin shicib leeyahayna muraad bay ka jabiyeen. hortagi maayo cidii ka dambeysana booliisku iyaga baalista ku haya iyaga ku daba jira insha Allah taala marka ay soo ururtana way wax walba consequence bay leeyihiin. consequence-keega marka la helo waxa weeyaan waxaan rajaynayaa in si fiican aanu uga wadbogan doono. ragii way galeen warshadii way joogeen haddana sharciyadii baan dhowrayno sugay anigoo badhasaabkii ah weli si rasmi ah marka la wareejinayo ninka wareejinaya maadaama gobolka ku taalo waa ana mas'uuliyadeeda leh. qof iska yimid meel ma geyn karo ma oran kara fadhiista cidda wareejinaysa mas'uuliyadeeda leh waa ana waxa sugayay amarkii iyo sharciyadii baashaas aan ku wareejinay shaqaalaha hadday tahay warshada hadday tahay. mudaharaadkani oo socday saacado badan ayaa aan wax khasaarihi soo gaadhin marka laga reebo tiradada oo la xidhay iyo gaadhiga gudoomiyaha gobolka Saaxil oo waxyeello soo gaadhay. waxaana ay shacbiga reer Berbera sheegeen in ay sii wadi doonaan mudaharaadkooda haddii aan la joojin wareejinta warshada leydhka ee Berbera. Cabdiraxmaan Maxamed Cige, telefishinka caalamiga ee Royal magaalada Berbera.